ناقالة إي وعضي جيدي واتسا صح وجهي كله هو ذا جدين صح ماشي اسمح لي قرا عبر صح شناق إي محل يقول لي هالين آواي حمراء وسطك صح انت أي ماذا كل ويلك سياسي صاحبي أهين فاهميسا okay iikaadi yarkii dhibaatada kuu geystay ee xamar kugu kufsaday iyo ninkan hadda ku dilay ee rabay inuu ku kufsado masaaxiibe ahaayeen waa gartay waxaa lii waana la shir qoola aniga gabar ay irid ii soo gargaraacday markay ii soo gargaraacday iridaa furay ninkana wuxuu degnaay gurigeena guriga ku dhegan mana ka filanayna ani asbu kugu sameeyni kaaskii hore waa aniga ma filanaynin absolutely wax ma anina wax mar kasta wax saan kaliya waxa waay daacadnimo ani aqabo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود الملك تكتبه ولكن كبير محمد نوره وحارب ما تينا تفافلو مو قال كانت صودا وتين قبدان توكلان توكا كهريسا ايان ميديا هيستي ايادو ساي شيكتي ولا يكون صدي تري هلقاس وحي قادناي قورتا مغالبة كدياريي إلا شلي إلا حلي إلا ساكي وحان كوكودا تشري arrinkaanu waxa ka qaldan markaan idin leeyahay waxa ka qaldan gabadhu waa gabar habar gidir horta marka laga soo tago qabiilada Soomaaliya waxay ku jirtaa qabiilada inta badan gabdhahooda in lagu ciyaaro ay ka dhaldeelin inta badan qabiilada gabdhahooda hadii la xumeeyo dhiig u daadiya u gurbada aan qaadan gunnimada iyo marastooda in la gardaraysto ama wax lagu sameeyo qabiilada ku magacaaban ayay gabadha ka soo jeedaa waliba habar gidir markii la sii kala qaado beesha sacad bay ka soo jeedaa oo ah dad ilaahay dhiig ku manaystay waxaan markaa uu kabayar ahaan isweydiiyey war gabadhan iyadoo magaalada Muqdisho joogta la xumeeyay ee cid u gurmata la waayay ee ka carartay Kenya tagtay ee haddana la faraxumeeyay miyaysan jirin cid looga cabsado miyaysan dad ka dhalan ma sheegata qabiilka ay sheegane ma ahan miya anigu inta badan dadka qabiilka ku aqdaanta maahi laakiin runta sheegaya arrinka baaritaan baan ilaa xalay ilaa shala ku hayay xog baan kaga wadaa gabadhan xog muhiima ayaa gabadhan kaga wadaa marka baaritaanka sameeyay horta waxa ay soo baxday gabadhaanu wiilkii hore inuusan kufsan horena waa uga hadla taas ninka hadda iyo garaafooyinkan hadda loo geystay wiilka u geystayna inuu yahay wiil iyadoo ay lacag ka cuntay horta marka koobaad de ilaahay baa igu og waa gabar walaasheeya Soomaalinimada hadii laga soo tago beesha bargida ka soo jeeda sababta loogu gurma waayay oo beesha dadka ay ka dhalatay ama walaalkeed ama inadeerkeed ama abtigeed ama waalidkeed ugu gurma waayeen ayaa anagu ka damqaday waxa la sheegay horta gabadhu inay tahay runta sheegaya hadii la qarqarinayay anigu runta halka runta u furan tahay ma qariyo markaan baaritaanka sameeyay waxa ii soo baxday gabadhaan horta inay tahay gabar beerta gashay markaan ku leeyahay gabar isticmaasho waxyaalaha drugska haday qaad noqoto haday qamri noqoto haday shiishad noqoto wax kasta oo drugs isticmaasha dadkan gabdhahan iyo wiilkan ay leedahay waa isku kay tageen waa isku team guriga isla degan yihiin way isla qayilaan habeen kasta alaqa isla abaan shiishada isla abaan wiilkan marka dibka u geystay ayay lacagaad u tiro badan ka cuntay gabadhu deetana is afgaraway baa ka yimid halka wiilku inuu kufsado ma usaribin gabadha hadda ilaahay baa igu og wixii la sheegay baan sheegaya ayada lambarkeeda ayaan helay inaan ayada waraysi ka qaado ayaan damcay oo aan caloosheeda gacanta geliyo wixii ku jira ka soo saaro haddana waa ka sariigtay oo waxaan siri yay kaan nahan gabadhu marka waa gabar dadkii ay ka dhalatay ay dayriyeen oo beerta ku jirta oo de waa taqaanaa dadka Soomaaliyeed inta badan
qofku hadduu yahay qof waxyaalaha daraagiska isticmaalo qaladka oo geystay iyo dhibka oo geystay dad looguma xumay karo sababtoo ah qof yow maaha hada wallahi been bad moodaan waxaan rabaa marka bulshada Soomaaliyeed inaan u cadeeyo walaashay horta wax kasta ku dhacay waa gabar Soomaaliyeed anigu raali kama yihi gabar Soomaaliyeed la garaafeeyo in xumaan loo geysto in jirkeeda sida garaafooyin loogu yeelo anigu kaba yaraha raali kama yihi haddana saasoy tahay waxa loo qarinayo oo dadka looga qarinayo oo aan dadkeedu hadlayn oo markasta meel xun joog ay u tahay oo war gabdhaha dhan ma la kufsado su'aal baan idinkeedu weydiinayaaye gabdhaha Soomaaliyeed oo caanka ma la kufsado ayaga sababta ayada loo kufsanayo maxay tahay sababta ay u leedahay waa la kufsan rabay iyo waa la kufsaday maxay tahay kumanaan ayada ka qurxoon oo ka jir qurxoon oo hadday ku marmaraan aan leedahay xaasha oo ninkaan ilaahay ka cabsanin oo qoor sagaaraynayo ayaa jirta maxaa loo kufsan waaya ayaga dadka ayada marka hore gasha oo baqtiga la cabta markii ay garaafayaan ayada soo qaylisa waa halka ay familkoodu ku kala tageen waaridkoodu uga xanaaqsan yahay walaaleedu uga xanaaqsan yahay talkeedu ugu danaaninayn arrinka gabadhan halka baan uga baxayaa waxaan dardaaran u jeedinayaa dadka gabadhaas ka dhalatay hadday hooyo tahay hadday walaal tahay hadday abti tahay hadday qabiil tahay hadday jufa hoose tahay dardaaran baan halkan uga jeedinayaa war maqadiina dadka ka cishta hadday fayowdahay iyo hadday waalan tahay hadday tahay wadada mid dhigata iyo hadday tahay mid asturanba waxa ay huwan tahay oo maanta la sheegaya waa magaciina waa gabar reebel baa la leeyahay in maqadiina meelaha wadooyinka la soo dhigo in maqadiina media looga sheekaysto in dadka aan xogogaalka ahayn ay dhahaan war beesha gabadhaan ka dhalatay magumba arrinkaas wax beesha gabadhaas ka dhalatay qabta maahan war waxaan idin leeyahay qofka waalan qofkiisa u fayoobe beesha gabadhaas ka dhalatay gabadha gurmada arrinkan baraha bulshada u gaaray Soomaaliya oo dhan baa u gaaray maanta waxa la joogaa xilliga aad falcin lahaydeen saarabtan buu uga falciliya gabadhiina xirateena u soo arteena xal adinka un baa la inkaga baahan yahay gabadhiina dadka ay la joogto oo daraagiska isticmaala ka dhex bixiya guri degtada ku ilaashada halkaas ayadoo waalan oo ogtiin inay qayilayso oo ogtiin inay qamri cabayso guri intaad u kuleysaan halkan ku cabdhaha way sharafta ayaa loo dhintaa wax kastana waxa ka weyn sharafta gabadha magaciina wantay sharafteeda iyo karaamadeenna ilaaliya ayadana waxaan kula dardaarmayaa marka haddaan ku laabto walaashay war walaalay adduunyo aakhiro waa kala badan tahay dulmigan iyo baktigan iyo fisqigan aad ku dhex jirtid ka soo dhaxbax dadka qaar baa komandiyashu wax ku soo qorayeen war gabadhan adduunkii baa lagu cadaabay ayada ilaahay baa u carooday sababtoo fisqi bay ku dhex jirtaa maalin kasta niman bay la qayilaysaa maalin kasta qamri bay cabaysaa xarigii ilaahay bay goysay way ka fogaatay allihii samaystay baa u carooday waxa dhibkaan ugu dhacayo waxaan marka ugu dambayntii leeyahay war gabadha dadkii dhalaha u gurmadaan ayadana waxaan leeyahay war walaashay is astur lugaha gees iskugu duwo qashinka iyo baktigan ka dhex bax aad iyo aad baad maadsantay muuqaalkan oo dog soo gaaray waxaan kaa codsanayaa shan farood iyo calaalan saartid dadka Soomaaliyeed waa laab la kac badan yihiin qolaba si ay muuqaalka gabadha u qaadatay si xaqiiqada dhabta loo ogaado muuqaalkan shan farood iyo calaalan saar meel dheer gaarsiin aad iyo aad baad maadsantay